marka soo dhawo walaalkay ma santiin soo raxim saaki Cabdullaahi wa Faris Maat saaki maxkamadda u socday anoo dacweyro way soo waxay xafladii kala soo qayb galwaan in maslaxayada wa aad ma santiin bahda BBC aad u faraxsanahay runtii in Nairobi bariga Afrika la keenay Kenya ay fursad u heleen inay meeshii BBC ee dictatorial ka sheegay waxaan ku iridee Kenya waa democracy waxay BBC u soo degtay maali kale Soomaalida aysan u tagin runtii markastana waan dhiirigeliyaa aniga democracy-ga Kenya ay haysato gobolka intiisa kale ma haysto waxaan kaloo rabaa in aan taabto dhalinyarada hadda u badantiin intaan arkay aad u fara badan gabdhay wiilal leh rag odayaalo waaweyn oo miisaan lana meesha waad ka saarteen marka dee waxaa laydinka rabaa meel la idinkaa ku dheereeya oo social media teknolojiyada la qabsigeeda idinkaa xarfaan ku ah ayagana dee dhaqankii iyo sugaankii iyo wixii khatar ku ahaayeen inaad balance garaysaan oo kabjar garaysaan oo nimankii ay gabdhihii meesha ka tagay aad ka daba tagtaan la rabaa oo dhaqanka iyo suugaanta iyo waxaas oo dhan aad xoog saartaan runtii sababtoo dawladda Soomaaliyeed oo hadda mas'uuliyad ka saaran afka Soomaaliga oo xoog leh hadda dalkii kama jirto markii idaacadaha BBC doo kale taa magan loo yahay xagga haday taa erbixinta xagga haday tahay anaga erayo badan oo ku dhibanaha jirno marka hadlayno marka anigu BBC in badan aan client u ahaa ilaa 10 sano siyaasadda ku jiray marka waan bogaadinayaa marmarna qalad waa in ka dhacaya cudurdaarka ceeb maaha waa in iska cudurdaarataan laakiin dhexdhexaadnimada media waxa la dhexdhexaadnimo waa adag tahay laakiin mawduuciya leedahay ina mawduuci noqotiin objective noqotiin xog dhaba ah keentaan mas'uuliyadna waa muhiim taawud meestaas waaye alaan dal anaga waxaan ku jirnaa soo kabanayo colaad ka soo kabanayo marka hadada baxay soo sheegay tafatiraha waa inay dhinaca wanaaga iyo waxa togan ay u badan yihiin oo waxa taban aad loo yareeyo marka af Soomaali xoogan qiimo leh suugaan dhaqan laha in ka filayna hadaatiin BBC tar indhaha leen ku wada haya hadee waana xamarno waxaan niri maadaama BBC halkaan ay soo degtay baasi si juugiya la wareegay waa maasantii salaamu calaykum